shalay markaa ra'iisul wasaaraha magacaabaysay markaa wasiirada magacaabaysay markaa taliyaasha ciidamada magacaabaysay dad mucaarada oo kugu haysta oo leh madaxweynuhu xaq uma leh inuu wasiir magacaabo taliye magacaabo ra'iisul wasaare magacaabo miyaa aragtay maxaa maanta keenay dadku inay yiraahdaan madaxweynuhu xaq uma leh inuu guddiga magacaabo waxa keenay farsamo xumadaada waxa keenay markii guddigii ku soo dartay dad aanu dastuur ku ogolayn oo istaahil ahayn inay maanta ummadda Soomaaliyeed doorashadooda ay maamulaan marka madaxweyne muddada yar ee hartay ka faa'iideysto tanaasulku taariikhdaadu u wanaagsanaan doona inaad tanaasusho micnaheeda maaha inaad baqday inaad tanaasusho micnaheeda maaha in laga adkaaday inaad tanaasusho wadanka u fiican tahay dawladnimada u fiican tahay Soomaalinimada u fiican tahay muslimnimada u fiican tahay dalka iyo dadka u fiican tahay marka tanaasul baan ku leenahay waxa la yiri hadii geed tuqdiisi durduriso arankiisi maxaa laga maleeyay hadii adigoo oday wadanka madaxweynaha dalka kitaabka lagu dhaariyay dastuurka loo doortay wadanka kharibayso mucaarad maxaa ka sugnaa laakiin madaxweynuhu haduu garan waayo xaq ay dadku ku leeyihiin waxa imanaysa oo hadda taagan inay dadkuna garan waayaan xaq uu isagu leeyahay hadii ka soo jeedo beesha daarood madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuma taageeri kartid oo kaliya isku haybaanu nahay sidoo kale hadii ka soo jeedo beesha hawiye madaxweynaha kuma mucaaradi kartid oo kaliya isku qabiil manihin madaxweynaha waxa ku taageeri kartaa wixii uu qabtay muddadii uu xafiiska joogay iyo siyaasadihiisa sidaas la mida madaxweynaha waxa ku mucaaradi kartaa muddadii uu xafiiska joogay wixii isleedahay waa qaban waayay oo waa ku fashilmay iyo siyaasadaha isleedahay wadanka waa ku hogaaminaya oo dan ma aha anigu shiina culay ahaan Soomaali waxay u qaybsatay 4.5 kaas baad maxaa ku raadahay baarlamaanka iyo nidaamka wadanka hadda ka taliya loo qaybsadaa madaxweynaha waxa kamid ah dadka uu meesha ku matalo haddana waa ka soo horjeeda madaxweynaha waa mucaaradanahay madaxweynaha uma mucaaradani wax aniga ii gaar oo aan ka waayay xil aan ka doontay oo uu ii magacaabi waayina ugu dudi maayo hadii qabiil wax lagu taageerayna dib magaciisa aan dugsan lahayo waa isaga sacabeyn lahaa laakiin madaxweynaha waxa ku mucaaradanahay oo uga soo horjeeda oo u jecelahay doorashada inta lagu jabiyo inay cid kale kursiga cid ay rabto Soomaaliya ahaato ay kaga adkaato waxa weeye waxaan aaminsanahay inay jiraan dad badan siyaasiyiin badan waxgarad badan aqoonyahan badan oo Soomaaliyeed oo reer kasta leh oo madaxweynaha kaga munaasibsan oo kaga istaahilsan maanta inay dalka ay hogaamiyaan waxaan aaminsanahay maalintii madaxweynaha la doortay hadii dadka aan aniga tuhmayo qaarkood la dooran lahaa inay Soomaaliya sawirka ay maanta leedahay sawir ka duwan ay lahaan lahayd madaxweynihii isaga ka horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud maalintii xilka loo magacaabayay waxa jira deegaano badan oo gacanta al-shabaab ku jiray baa jiray laakiinse uu intuu isagu ku duulay oo ka saaray waxaan aaminsanahay nabadgelyada intii Xasan uu joogay inay wax badan iska bedeleen dagaalo badan oo qaraarna oo al-shabaab la galay oo waliba uu kaga adkaaday sidaas la mida madaxweynihii ka sii horeeyay Xasan Sheekh Shariif markii la dooranayay waxa weeye magaalada Muqdisho kala bar ama inteeda badan waxa gacanta ku hayay al-shabaab isaga xataa waxa lagu soo doortay Djibouti markii uu yimi wuxuu ku guuleystay isaga xukuumaddiisii inay argagixisada magaalada ka saaraan caasimadda dagaal qaraar kadib sidoo kale magaalooyin badan oo caasimado gobol ay ka mid tahay Beledweyne ay ka mid tahay marka ay ka mid tahay Kismaayo ay ku soo dhacaan oo laga saaro gacanta argagixisada ayna ku soo dhacaan gacanta dawladda sidaas la mida madaxweynihii ka horeeyay Allah u naxariisto Cabdullaahi Yuusuf Axmed markii la dooranayay waxa la socoteen wadanka inay haysteen hogaamiye kooxeedyo waxa la socoteen filla Soomaaliya madaxweyne fariista inuu ugu dameeyay Allah u naxariistay Siyaad Barre waxa la socotaan dadaalo badan iyo dagaalo badan oo galay kadib inay wadanka nidaam dawli ah oo ka hana qaaday sidaas la mida madaxweynihii isaga ka soo horeeyay ilaahay cimrigiisa raajiyo Cabdiqaasim Salaah Xasan waxa la socotaan in la doortay iyadoo ummadda Soomaaliyeed la laayahay cid ku matasha fagaarayaasha caalamka waxa la socotaan inuu soo celiyay karaamadii ummadda Soomaaliyeed kursigeennii yaalay
jaamacadda carabta intuu boorka ka jafay uu fariistay oo aynu helnay muddo dhowr iyo 10 sano markii ugu horeysay madaxweyne masraxyada caalamka inuu ku metela maxamed cabdullaahi farmaajo markii la doortay 8 February waxa loo dhiibay wadan ka hagaagsan wadankii loo dhiibay xasan sheekh maxamuud waxa loo dhiibay wadan ka fiican wadankii loo dhiibay sheekh shariif wuxuu hantay dawladnimo ka xoog badan tii uu la wareegay madaxweyne cabdullaahi yuusuf waxaan filaynay بعدما ciidamo dhisnaayeen بعدما dhaqaalaha wax badan laga qabtay بعدما maamul goboleedyadii la dhisay oo nidaamka wadanku baahay inuu argagixisada inta yar ka harsan oo wadanka ka suulin doono waxa laga naxaa adigana aadan dafiri karin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo intuu wadanka joogay hal degmo inuusan al-shabaab ka qabsan hal dagaal inuusan al-shabaab la gelin taasina ay keentay al-shabaabtii marka lagu la dagaalami waayay tuulooyinkii iyo dhulkii ay ku dhuumaalaysanayeen inay magaalada caasimadda inta soo galaan ay ka fuliyaan weeraro aan u suurtagelin intii ay jireen inay fuliyaan ay ka fuliyaan qaraxyo ay ku dhintaan dad aan horey loo arag tiradooda oo aad u badan ilaahay ha u naxariistee marka madaxweynaha waxaan aaminsanahay waxa uu soo kordhiyay oo kaliya oo madaxweynayaashii hore uu kaga fiicnaa oo kaga badan yahay inay tahay igu sawir TV-ga qaranka waxa la furay intii Sheekh Shariif joogay airportka magaalada maxaa ku raahday waxa la dhisay maxaa ku raahday intii Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha ahaa dekada Muqdisho iyo airportka Muqdisho waxay dawladda Soomaaliyeed gacanta ku dhigtay oo ay dib u hawlgaleen iyadoo dawladda Soomaaliyeed ay maamulayso intii uu xafiiska joogay Allah ha u naxariistay madaxweynihii horeeto Cabdullaahi Yuusuf Axmed ninka la yiraahdo madaxweynaha hadda talada haya maxamed cabdullaahi farmaajo wax allaale iyo wax oo la taaban karo oo la oran karo taariikhda u galiyaan anigu garan maayo oo maanta aan halka ka xusi karo mushahar waa bixiyay waa ku faanaa laakiinse aniga guriga kan aan joogo qofka aan u dirsado inuu iga shaqeeyo oo shaqaalaha guriga kan ka ah ama shirkadda aan aniga madaxda ka ay ka shaqeynaya mushahar baasiye kuma faani karo mushahar baasiye kuma faani karo sababtoo ah hadii aanan mushahar siin yaa ay shaqeynaya madaxweynuhu ciidankan hadda uu dadka mucaaradka ah ku caburinayo oo uu adeegsanayo sida sharci darrada oo dastuurka ka baxsan isagay dantu ugu jirtaa inuu mushahar siiyo sababtoo ah haduusan mushahar siin isagay ku soo jeesan lahayn sidaas la mida xafiiskiisa cid uga shaqeysa wuxuu qabata maxaa ku raahday shaqada u fara dhuuban lama heleen madaxweynaha marka anigu sidaasaan ku diidanahay wax qabad xumo siyaasad xumo fudayd dawladnimadii iyo dastuurkii oo la laalaabayo wadankii oo waji xun la gelinayo baan madaxweynaha uga soo horjeeda madaxweynaha qabiil uga soo horjeedo dadka ana u xiga anu meesha ugu matala hadii 4.5 la leeyahay waxaan ka rabaa marka dadka madaxweynaha dhaliilsan iyo kuwa taageersanna wixii ay iyaga fikirka aan aniga qabo kulay mid ka duwan bay qabaan ama qabi karaan oo waxa aniga ii muuqdo wax ka duwan ba u muuqan kara oo horumar oo wax qabada dadka ilaahay isku aragti kama dhigin isku si wax uma wada cabiraan isku sina wax uma wada arkaan marka dadka madaxweynaha taageersan waxa la rabaa inay madaxweynaha ku taageeraan wixii ay la tahay wax qabada laakiin aysan qabiil ku taageerin sidaas si la mid ah dadka madaxweynaha diidan waa heer hebel yay ku diidin waa inay ku diidaan waxaan aniga ku diidanahay iyo wax la mid ah ama ka yar ama ka badan oo ah madaxweynuhu xilkii loo dhiibay kama soo bixin madaxweynuhu meeshii la rabay inuu Soomaali ku hago kuma hagin meeshii ardaagii la rabay inuu ku furay kuma furin sida waa inay ku diidaan qabiil dan inuu kuma jirto waxa loo tartamayo oo la doonayo waa kursiga ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed baa la dooranaya caaqil reer malaaq reer ugaas reer cid dooran mayso cidii u xiisa qabta inay reerkooda hogaamiso yey annagana nadaalin qasiyo dagaalna gelin reerkooda waa taqaana waa u dhibiyatahay aado war iigu caana shuba nabadoon caaqil ugaas malaaq imaam suldaan waxa rabto iigu caana shuba marka waxaan idin leeyahay yaan wadanka meel fiican baynu maanta joognaa meel xun baynu ka nimi meeshaynu maanta joogno farmaajo kuma soo gaarin waxaynu ku soo gaarnay jaranjarada dawladnimo ku soo gaarnay oo soo soconayso qori isku dhiiba madaxweynaha waxa maanta laga rabaa oo xaq maxaa ku raadaya aan ugu leenahay isaguna uu xaq u leeyahay waxa weeye waxaan anagu xaq ugu leenahay waxa weeye inuu soo magacaabo guddi doorasho
oo dadku ay aamini karaan oo masiirka ummadda inay maamulaan oo doorasho hufan oo xor xalaal ay qabtaan ay u soo magacaabo dad lagu kalsoonaan karo isagu xaq wuxuu leeyahay inuu guddi soo magacaabo laakiin guddi cidii uu rabaa inuu soo magacaabo xaq uma leh dastuur baa jira xeerar baa jira madaxweynaha xeerarkaasi waa inay gacanta qaban karaan waa inuu xeerin karo waa inuu san ku dhici karo waa inuu ka xishoon karo waxaanu xaq ugu leenahay madaxweynaha inuu soo magacaabo guddi lagu kalsoonaan karo oo dadka Soomaaliyeed ay u soo wada hogan karaan oo cid walba oran karto dadkaasi shaqada loo igmaday waa lagu aamini karaa isagu wuxuu xaq u leeyahay inuu dadka soo magacaabo cid kale xaq u leh ma jirto laakiin madaxweynuhu hadduu garan waayo xaq ay dadku ku leeyihiin waxa imanaysa oo hadda taagan inay dadkuna garan waayaan xaq uu isagu leeyahay marka madaxweynuhu waxa ku leeyahay wadanka qalalaasaha gelin dhaxalkaaga iyo taariikhdaada u tur doorasho ku timi meesha waxa laga rabaa waxa weeye doorashadii qabo baa lagu leeyahay shalay markaa ra'iisul wasaaraha magacaabaysay markaa wasiirada magacaabaysay markaa taliyaasha ciidamada magacaabaysay dad mucaarada oo kugu haysta oo leh madaxweynuhu xaq uma leh inuu wasiir magacaabo taliye magacaabo ra'iisul wasaare magacaabo miyaa aragtay maxaa maanta keenay dadku inay yiraahdaan madaxweynuhu xaq uma leh inuu guddiga magacaabo waxa keenay farsamo xumadaada waxa keenay markii ay guddigii ku soo dartay dad aanu dastuur ku ogolayn oo istaahil ahayn inay maanta ummadda Soomaaliyeed doorashadooda ay maamulaan marka madaxweyne muddada yar ee hartay ka faa'iideysto tanaasulku taariikhdaada u wanaagsanaan doona inaad tanaasusho micnaheeda maaha inaad baqday inaad tanaasusho micnaheeda maaha in laga adkaaday inaad tanaasusho micnaheeda maaha inaad maxaa ku raadayay بريد الأكل جوجل دفتي إنها تناسشوا وضن كأوفي عنته دولة لماذا أوفي عنته سومالي لماذا أوفي عنته مسلم لماذا أوفي عنته دلك يدك أوفي عنته مركا تناسب بين كلنا وحلا يري هدي جيل تقديس يدرسوا أرن كسم حالة جمالية هدي أديكو أضيع وضن كمل حويني دلك كتاب كله جداري دستور كله دورتي وضن كخربيسو معارض محاك شفنا وحكشفنا وإن يجنا أرتاهم واي مركا مدحونا على أضيع waxaan ku leeyahay faraska asfuushantaay maanta ma aha mid fiican ma dadka qabyaalada wada waxaan leeyahay war qabiil meel lagu ma gaaro ninka siyaasiga ah qabyaalada ama qabiilka wuxuu adeegsadaa marka uu meel u socdo jaranjara laga dhiganaya meesha waxa la isku hayaa reer hebel maaha nimanka siyaasiyiinta is haya reer hebel isku ma hayaan waxa isku hayaan kursigaasi haddii maanta hawiye la dhexdhigo xataa uma qaybsami karo ma wada gaaro haddii daaradu dhex garo ma wada gaaro reerka Soomaaliyeed jifida ugu yar hadii la yiraahdo kursiga ku soo heshiiya kuma heshiin karaan laakiin waxaynu ku heshiin karnaa waxa weeye doorasho xor oo xalaal taas baan ku wada qanci karnaa maxsuulka ka soo baxa iyo cid la doortana ee u sacabtumi karnaa una hogaansami karnaa marka waxaan rabnaa qabyaalada hal iska daayo qabiiliyaan waxba lagu cabirin madaxweynaha in la cadaadiyo waa loo baahan yahay si walba oo lagu cadaadin karo laakiin saas waa inay noqoto si aan wadanka nabadgelyadiisa wax u dhimi karin dawladnimadiisa deelqaaf ku noqon karin aan dhaawici karin waxaan halka uga soo qeylinayo u soo fadhiya waxaan isleeyahay cadaadiska madaxweynaha la saarayo qayb ka noqo sidaas la mida madaxweynaha waa in cadaadis la saaro shalay xasan sheekh markuu madaxweynaha hore taxafiiska joogay madaxweynuhu wuxuu kamid ahaa musharaxiintii madaxweynaha cadaadiska saaray gudiyada uu magacaabay dhalisana qaabkii uu maamul goboleedyada u soo dhisay sidugsana sidoo wuxuu wado iyo sidoo wuxuu maamulaya campaareynay sidaas la mida maanta ragga musharaxiinta ah oo tartamaya oo la isaga waa dhaameena hadii la doorto Soomaaliyeed inay mucaaradaan inay ligliga qabsadaan inay maxaa ku raas siyaasadihiisa dhalilaan inay meel kasta u soo istaagaan oo ay hurdada ka siiyaan xaq bay u leeyihiin madaxweynuhu wuxuu shalay xasan sheekh ku sameeyay oo sheekh shariif ku sameeyay maanta inuu yiraahdo aniga layguma sameyn karo xaq uma leeyahay leenahay saasaanu leenahay qabyaalada hal iska daayo wadanka qabiil waa soo aragnay dagaal isku waa soo aragnay dawlad xumo ma rabno dawlad la'aan ma rabno dagaal isku ma rabno qabiil la sudul ma rabno waxaan rabnaa dawladnimada maanta halka taala in la sii xoojiyo cidda maanta la rabo inay wadanka u turto oo kow mas'uuliyadda ka saaran tahay waa madaxweyne soo dabac madaxweyne qalinkan waxa lagu dhiibay ina wadanka dantiisa ugu adeegto laguma dhiibin ina dantaada gaarka iyo doorashada ku bob ugu adeegsato
saddexda ama afarta ama shanta ama lixda qof ee guddiga doorashada ka mid ah ee dastuurku uusan u banayn inaad soo magacowdo haddii lagugu diiday lagugu fahmay bedel Soomaali malaayiin weeye waxa ka soo dhaxli karta xataa kuwa daacadnimada ku tuhmayso kuwa kale oo ku daacadaba ka soo heli karta laakiin cidda guddiga doorashada noqon doonta ama loo dooranayo ama dastuurku u dhigayo macnaheedu maaha dantaada inay ka shaqeyso macnaheedu waxa weeye inay ka shaqeyso doorasho xor ah oo xalaal ah haddii marka adiga ku soo baxdo alxamdulillah waa lagu haneynaya hadaa ku soo bixi weydana cidii kale ku soo baxda bay Soomaali dooratay laakiin doorasho aan xor oo xalaal ahayn hadaa qabato oo si sax ah aadan ku soo bixin de wadanka qalalaasa gelinaysa cid aqbalaysa ma leh shalay markii caga caday markii shakhsiga kaliya ahayd doorashada gashay 20 ama 30 dhex oroday ka heshay awood rag ma dheereen sababta keentay madaxweynaha marka xukunka joogay ee shalay ka awood badnaa ee Soomaali hore u dooratay ee ciidamada haystay ee dawladnimada haystay inuu gacanta ku qabto gacanta kale tan madaxweynaha ka soo horeeyay ee adiga dadku ku baray ee ra'iisul wasaaraha ku magacaabay gacanta kale ku qabto waxa keenay waxay ahayd doorashada taas wixii ka soo baxday doorashada lagu qanacsanaa qofna dhinac kama dhaafi karin laakiinse haddii aad keento doorasho jajuub ah dadku aysan ku wada qanacsanayn waxa ka soo baxaysa dadku waxaysan ku qancin taasina waxay keenaysaa in wadanka uu qalalaasa galo ka digtoono baan leenahay madaxweyne dadka ku xiga baan joog baan ku leenahay joog jidka aad ku socoto waa khaldan yahay ka joog maraxaaga u tur taariikhdaada u tur dawladnimada u tur dalka u tur dadka u tur diinta u tur baan ku leenahay qalaasa ma qaadi karno dadka madaxweynaha diidan waxa leenahay madaxweynaha qabiilka ku diidanina madaxweyne Soomaaliyeed weeye inta xafiiska jooga karaamadiisa la ilaaliyo dadka hadalada aan munaasibka ahayn leh dadka sawiradiisa iyo siyaabo aan munaasibka wala dhaqameyn la yaabmayno qof walba wuxuu hadlaa intii aqligiisa ah wuxuu ku kacaa intii maxaa ku raadayay garashadiisa la yaabmayno laakiin waxa leenahay madaxweynaha karaamadiisa hala ilaaliyo madaxweyne wadna dastuurka aan kugu aaminay noo ilaali waa ninkii shiina culeeyaha idin leh salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh